halkani waa bariishka madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland xoogga iyo xoolahaba uu galiyay ee isku xidhi doona jaamacadda Camuud oo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Arday oo ka ahaa iyo magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal waa deeq madaxweynaha uga timiday guud ahaanba bahda ku abtirsata jaamacadda Camuud isagoo tan lagu tilmaamay guul wax qabad markii bariishkaasi uu hirgalay dhaawac iyo hadimo guud ahaanba hal bacaad lagu liso ka dhigtay dadaalkii iyo xoolihii iyo xooggii uu galiyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi bariishkaasi ayaa soo gaadhay xildhibaanada golaha deegaanka oo arrintaasi ka hadlaya iyo dayacaadda bariishkaasi madaxweynuhu xoolaha iyo xoogga uu galiyay cidda dayacday oo maanta ka hadlaya bariishka xaaladiisa ayaa u sheegay warbaahinta sida tan waxaan halkan uga mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxqabadka bariishka ay degmadu u baahnayd jaamacadda iyo isku xidhaya degmada oo ka qabtay dhibaatada soo gaadhay drainage-ka biyaha inuu ka qabto la doonayay bariishka biyahaasi waxay ka soo baydheen meel kiiloomitir u jirta bariishka dhibaatada dhacday waxa mas'uuliyadeeda leh oo gabay maamulka degmada oo ugu horeeyo maayirka degmadu Salebaan Xasan Cabdi degmadani baaba bay ku sugan tahay maanta degmadan god bay ku dhacday godkii aan ka soo saarnayna dib ugu noqotay maayirkaygu maanta inuu albaabka lacag urursiin buu joogaa shaqo kale oo degmada ka qabtay ma jiro xafiis ma fadhiisto 3 bilood baa mushaarkii la leeyahay shalay baad qaylihiisana maanta amusaanu suri ninay ka qarsoontay ma jirto degmada burburkeedu degmadan deemala sida kala degmooyinka looga reebaya wax qabadka degmada ina kireyna cagafyada iyo ka jecelna maamulkaygu waxaan leeyahay waxaan halkan baaq uga diray madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland hanti dhowrka qaranka wasaaradda arrimaha gudaha waxaan leenahay degmadii Boorame way baabaaday meel aan loo adkeysan karin bay maraysaa hanti dhowrka guud waliba qaas ahaan hanti dhowrka guud waxaan leenahay waajibaadkaagii shaqeed u dhaarateen inaad fulisaan doonaynaa waxa weeye muddo 3 bilood ah ayay imka shaqaalaha masaakiinta mushaarkoodii laayin anagu iskama hadlaynaa lafaayaga waxaan ka hadlaynaa masaakiinta shaqaalaha yar ee 3 bilood lacag leh maal dakhliga degmigii intaas oo milyan baa soo xorota مش معقول بشي لو واي اما 3 بلاد لو واي انا waxaan leeyahay gudoomiye waxa way xilka waad qabtay isgadig anaga tolka og inaad qabtay Hori Ahmed Hori TV caalamiga hoon Cable TV magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waanu libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sida ma sameyn karayo warmaahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Somaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya Samtel shirkadda dadweynaha